dunidan aan ku noolnahay waxaa ku nool ama ku sugan dadyo kala duwan. haddaba maxay tahay sababta dadkaasi kala duwan ay hal af ugu hadli waayeen? runtii cajiib ayay ahaan lahayd inaad aragto iyadoo dadka caalamkan ku nool ay isku fahmaan hal luqad oo kaliya. sida la aaminsan yahay qiyaas ahaan dunidan waxaa looga hadlaa luqado kor u dhaafaya 7,000 oo af. hal dal ayaa laga yaabaa inuu leeyahay luqado kala duwan. iska badaaba hal dale waxaa laga yaabaa laba walaalo ah in ay ku kala duwanaadaan luqadda lagu hadlayo amaba ay noqdaan kala af. sababta ugu mudan ee keentay in dadka dunidan ku nool ay ku hadlaan luqado kala duwan ayaa lagu sheegaa inay yihiin qolada loo yaqaano reer Baabil. reer Baabil waa dad ku noolaa magaalada la yiraahdo Baabil oo ah magaalo ku taala dalka Ciraaq, waxayna xukumi jireen carra aad u weyn oo ka agdhow waddankaasi Ciraaq iyo wadamada kale ee dariska ah. haddaba sidee reer Baabil ay sabab ugu noqdeen in dadka dunidan jooga ay luqado kala duwan ku hadlaan? dadkii deganaa magaaladaasi Baabil way kulmeen xilli waxayna ku heshiiyeen inay dhisaan magaalo iyo buundo gaaraysa samada si ay hawadooda u qabsadaan una diidaan raacidda amarada Alle ka imaanaya. iyaga ayaa ku heshiiyey isna tusay in ay Alle weyne ka digtoomaan iyaguna hawadooda maamulaan si ay u noqdaan qoom meel walba ka dhisan isla markaana aysan jirin meel ay ka baqaan. kadib si loo ciqaabo Ilaahay wuxuu ku ciqaabay inuu ka dhigay dad kala afduwan isla markaana luqad ahaan aan isfahmi karin, waxayna noqotay in ay ku adkaato isfahamkooda. taasina waxay ka dhigtay in meesha uu ka baxay heshiiskoodii ahaa in ay dhisaan magaalo iyo buundo gaaraysa cirka si hawadooda iyagu u maamulaan. waxayna taasi mar qura ka dhigtay kuwa u baahan eebbaweyne in awaamirtiisa ay si toos u raacaan. waxaana lagu sheegaa inay tahay sababta ugu weyn ee dunidani ay u noqotay mid luqado kala duwan ku hadasha. haddii aan eegno sababta labaad ee la isleeyahay way ugu mudan tahay in dunidu isfahmi weydo luqadeeduna kala bedelnaato waxay noqonaysaa horumarka luqadihii qadiimiga ahaa. sidaan ognahayba mar kasta waxaa soo baxa alaab cusub ama xaalad cusub. waxaa sidoo kale timaada aalado cusub iyo elektaroonig iyadoo mar walba dunidu ay horusocod samayso. arrinta cusub waxay mar walba noqotaa mid u baahan ama aaladda cusubba in loo bixiyo magac cusub, waxaana lagu kala duwanaadaa magacyada loo bixinayo aaladaha iyo alaabaha cusub ee soo baxay iyo xaaladaha lagu guda jiro. sababta saddexaad ee ugu mudan in dadka dunidu ay isfahmi waayaan ayaa waxaa ka mid ah dadka oo kala go'doonsanaa. dadkii hore waxay ku kala xayirnaayeen waddamadooda iyo weliba goobaha ay degan yihiin, mana jirin isi socodkan aadka u tirada badan ee xawaaraha ku socda. sidoo kale ma jirin xilliyadii hore wax isgaarsiina, sidaa darteed qolo walba waxay ku xayirnayd goobta ama waddanka ay degan tahay, waxayna eray bixin gaara u samayn jirtay wax walba oo ku soo kordha goobaha ay degan yihiin. waana mid ka mid ah waxyaabaha ka dhigay dunida in luqado kala duwan ay ku hadasho xilligan. ugu dambayntii luqadda Ingiriiska ayaa lagu sheegaa inay tahay luqad caalami ah, taasi oo la micno ah in adduun weynuhu ay isku fahmaan. hase yeeshee waxa badan inta aanan ku hadli karin ama aan akhrin karinba. ma laga yaabaa in luqadda Ingiriishku ay noqoto mid dunidoo dhan laga wada adeegsado ama la isku fahmo? nabaday.